iyo wixii dadku ku hadlayeen buu ilaahay ka arladay nafsin baa ka taagan tahay adigu waxa tahay kan abgaal ugu xun waliba abgaal kuwa dameerada dhaqda waxa lagu leeyahay taariikhda waxay cadeynaysaa waxa lagu leeyahay harti abgaal ba hal maalin tar ruqaansatay bay 4 iyo 10 dameer soo ruqaansadeen baa lagu leeyahay 4 dameer soo dhaceenday umadu geel bay dhicisa geel day war taariikhdu waxa la hayaa niman day shisheeyaa oo soo duulay oo inta geel ka dhacay aan anigu inta wadada u galay geeli ka dhacay aan ka reebtay mar waliba waxa tahay dhalfo nin laga daalay oo ilaahay abuurtay ninka hawiye ugu xunday anigu haday saas hawiye caawadii leeyahay war yaa dagaalamaya hawiyo habar gidir baa lagu leeyahay saas ay soo wada fiirinaya bismillaahir rahmaanir war nimankii baa soo socday wuxuu leeyahay marka abgaalka aan diray carray aan la daba joogo ragoodii guntina xirtin diraaci waa weyn haddaan lagu dambaamay raggan dirin maayaan muxuu awga lahaa abgaal waa hurda ari abgaal dagaalamay habar gidir indheheeniyatina ari xabada bilaabay hooy day nacala aabaha ku oli weydii kan abgaal ugu xun ugu foosha xun ee dameerada dhaqda ee hal iska dhaafay xataa aan lahayn riyo ee dameerka caanahooda maalabata taasani laan dheera oo xabada 4 dhinac u rida ee magaalada inta kugu yimid inta 1700 mitir ka soo gooyay magaaladaadii ku yiri noo kala bar bas magaalada ka bax kiisani ninka saa ugu kaadinayso in salaabaan ma ahayn caladii ku dhalta was salaad dameera la Soomaaliya maxaa loogu bixiyay salaad dameera maxaa loogu bixiyay niman dhaw inta la dagaal dameera soo rartay inta lagu arday dameer korkeeda xabada ka riday ma kartay waa orda ariday muunka ri waa orda ay ku leeyay war lahajada iyo waxa aad ku hadlayso iyo waxa aad umada la hor iimaanayso ii sheeg ma waxa isha fadhiisho nacala baagu war inta aan leenahay war ninka niihow xooluhu dhalin la hadlimeeno in yasir nabiyad miyuu macnaha in nin karti leh oo xaniye leh oo nin soo fadhiisan kara isku qalad macnaha muxuu leeyahay marka haddaan lagu dambaabay raggoodii guntina xirteen buu ku leeyahay ninkii awooga adlay aabahan duugay diiyo awooga nacladii kula shawas dul oo ninkii dilay ee inta subaxad ku qabtay ka bireeyay magaaladaadii ka saaray anigu waxaan ku sheeganayaa libin aniga adiga aan kugu sameeyay adiga libin aan ka gaaray baan ku sheeganayaa magaalada Muqdisho adaa iska ana hadda ku qiriya laakiin xaniyahayga iyo dalfadeeda iyo guskayga baan ku joogaa maxaan ka qaataa intaad ka qaadato in lamida ka qaataa gudoomiye qaataa ku xigeen ka qaataa afar degma degta intoo kala degaa day magaalada maalintii la yiraahdo war magaalada yaa ka niifay oo farmaajo maalintii la bixi waayay xaafadeeda bay ahayd meeshii inta la isku yimid leeri nacala abood ku yaali farmaajaha laga baxsho adiguna maalinta inta xaafadaada lagu yimid raggaagi laga xirnay elboorada la hal darbaxshay nacala abaha ku oli weeyay markaas aan 20 jira oo 4 sano u duula bacaaw su'aal baan ku weydiinayaa waxa sheegtay arti abgaali meel aad Soomaali aad ka degto ii sheegtay aan shabeellada hoose ee shabeellada dhexe ahayn inta adiga xagga ku dhaafay Muqdishodaada qabsaday oo xagga ku dhaafay aan waxaan taaganahay ilaa Jubbooyinka Ismaaciil maqlaysa ayaa degan habar gidi iyo ku laaday niman ogaadeen iyo wixii laayay maqlaysa niman ilaahay duu ku run yahay abgaal iyo iswatay 2006 hadda